barnaamijka maadaama wacyigelin yahana waxaan taataabanayaa waxyaalaha bulshada ama reerka u roon qodobka kale oo runtii aan rabaa inaan taabto waxa weeye waa qodobka labada qof oo reerka wada dhista markay kala tagaan ama isfuraan waxaa dhaca markii la isfuro ilaa in yar oo ilaahay u naxariista maahane cadowni baa bilaabata in hadallo aad iyo aad loo qariibsanaya la isku yiraahdaa bilaabata in ilmaha waliba markii ilmo yimaadaan baan ka hadlayaa markii ilmo yimaadaan ilmihii la isku xumeeyo ilmaha agtooda ayagoo jooga ama hooyada wax laga sheego ama aabbaha wax laga sheego arrintaa iyada ahna waxay keentaa runtii in ilmihii la isku diro in ilmihii labadii waalid iyo waalidkii la kala fogeeyo inta badanna waxaan aaminsanahay arrintaas ah markii gabadha la furo ilmo lagu furo in gabadha inta badani ay raggu gabadha ku xumeeyaan oo arrintaa ayada ah inta badan raggay ka timaadaan laanu ragga ayaa biilka lagu leeyahay gabadha markii ilmaha lagu furo ilmaha inaad biilatid oo aad korisid oo aad gacanta ku aad gabadha kala qayb qaadatid adaa waajib kugu tahay adiga wax laga rabo waa marka inaad ka mas'uuliyadii ilaahay ku saaray inaad ka warwareegtid waxa weeye wax sax ma ah dadnimana ma ah waxaan aad iyo aad uga xumahay in aysan jirin hay'ad dawliya ama hay'ad kale oo gabdhaha halkaas lagu dulminayo ka qabanaysa ma jirto walaa dawladdu markay bilaabato Soomaaliya ilaa iyo hadda aan joogno hay'ad u taagan mid bulsho iyo mid dawladeed u taagan midna ma jirto sidaas ayaa gabdhihii lagu tuntay xuquuqda ayagu meel kale ka raadiyaan laakiin tana u baahan oo sax ah oo ay gar ku helayaan inay runtii ka doodaan miiska soo saaraan arrinta ayada ah oo ah gabadha markii la furo in ilmaha lagu dayriyo warkooda lagu oo mar alla markay hadasho oo ay tiraahdo war ilmihii jawaabtu tiraahdo jawaabtu raggu ay yiraahdaan in badan oo kamid ah oo runtii aan iraahdo ardaaliin waayo runtii marka laga hadlo sababtoo ah gabadhii awood ma leh ay ku soo dhacsato awooddaas uga faa'iideysanaya awooddaas uga faa'iideysanaya markaas gabadhii ilmihii isla balanbalayaan isla darxumaanayaan hadba meel isku la dhacayaan markay tira war ilmahaagan ma ila korisna hadalku koowaad in badan oo kamid waxay yiraahdaan iska soo wareeji hadaa rabtid inaan ilmaha kula biil siiyo hadal iska soo wareeji sax ma ah waxay soo wareejinaysaa iyada hooyo u ah iyada ilmaha korintooda iyo daryeelkooda ilaa iyo 7 sano inta ka hooseysa iyo 7 sano ayada ayaa la rabaa inay koriso aqliyan waa sharciyan ayada korinaysa haddaysa jirin cilad hooyadu leedahay oo cad oo isku raacsan yahay inaa hooyadu awood u lahayn in ilmaha koriso taas waa wax kale laakiin haddii awood u leedahay oo adiga aad dulmigu ka socdo waxa waaye ilmaha in ayadu koriso ayada laga rabaa ilmahana ayada u roob waa ogtaa aduguna waa ogtaa hal maalin ma hayn kartid mar alla markii lagu keenaad waxa la raadinaysaa ama qaraabo ama hooyo ama islaan kale aad u aqabta la raadinaysaa saasna sax ma ahan arrintaas ayada raggu ilaahay ha uga baqeen gabdhaha waa ku dulmiyaan runtii ilmaha noocaas oo kala ma gudbayaal baa la yiraahdaa ilmaha labadii isku fiirsadana isku qabsadaan maanta oo dhan isku habaarayo silic iyo darxumo iyo dandaan iyo jactad baa ilmahaas ku koraan noloshana mustaqbalka qurux kuma yeeshaan inta badan qofkii ilaahay wanaajinaya waa gaar waay arrinta ayada marka waxa la rabaa runtii in ilmaha gabadha hadii ilaahay qadaro la kala tago in gabadha ilmaha la koriyo oo aan lagu xumayn oo aan lagu dhibin sababtoo ah hadaa ilmaha maanta dhibtid oo ilmaha ku xumaysid ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa waaye dulmiga qofka wax dulmiya ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqriya adduun balse adduunku inuu ku helay u badan ilmahaas hadhow see baarinimo uga helaysaa sidee rabtaan mustaqbalka ku garab istaagaan aqligaaga waxay kula tahay cunug aad dayacday iyo hooyihiisa furtay biilka u diiday inaad la korisaa u diiday hadhow inuu baari kuu noqdo oo ku garab istaaga aqligaaga saas miya waa dulmiye way sadeeg dhacdana runtii waa wax aad iyo aad u yar waa odayaasha gabdhaha laftigooda runtii waxay sameeyaan oo runtii baratig nolosha ku sameeyaan inay mar alla markii odaga uu furo kale inay odaga dhibaan ilmaha ku dhibaan isagoo jirin waa jiran yahay wuxuu u baahnaa waa u baahan yahay 12 maanta oo dhan problem aan dhamaanayn in ayaga laftooda qaar kamid ah dhinacooda inay ka timaado ayagana sax ma ahan ilmaha odaga ha ku dhibin awoodiisana ha dhaafsiin haddii kula walaalay intaana awoodaa ilmaha inaad ku taageero waxa weeye inaad ka aqbashid niyad wanaagsan aad ku aqbashid
ayaa aad iyo aad u wanaagsan marka barnaamijka waxaan rabaa inaan intaas ku soo ururiyo kulanka labaad iyo barnaamijka wacyigelinta bulshada ayaan isugu imaan doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh